madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanye isagoo ka duulaya ilaalinayana nadaafadda dalka iyo dadkaba doonayana horumarka iyo bilicda wadanka uu hogaaminayo ee madaxweynaha u yahay ayuu u aqoonsaday maalinta ololaha nadaafadda dalka maanta ay taariikhdu ahayd bisha Abriil 7 sanadka 2015 kaasoo guud ahaan wadanka oo dhan saaka subaxii looga dareeray ololaha nadaafadda madaxweynaha Soomaaliland ayaa kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa kala qayb galay ololaha nadaafadda taasina waxay tusaale fiican oo hogaamineed ay diiwaanka ugu gashay madaxweyne Axmed Silaanye in shacabkii doortay uu kala qayb galay markii labaad ururinta qashinka iyo quruxda Soomaaliland kaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu gacmaha ula tagay ururinta iyo gurida qashinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa subaxii hore ee saaka ka bilaabay kormeerkiisa shaqo degmada Axmed Daga halkaasoo waqtigaasi ay diyaar ku ahaayeen shaqaalaha wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland oo horkacayaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada wasiiru dowlaha agaasimaha guud iyo saraakiisha sarsare ee kala duwan ee wasaaradda madaxtooyada kuwaasoo markaasi ku hawlana ururinta qashinka madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray waxa uu gacantiisa ula tagay masharafadaha lagu ururinayay qashinkaasi intaasi kadib wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ku soo dhaweeyay waxa loogu jira ololay si loo nadaafadin lahaa ee waxa weeye xashiishka iyo qashinka looga nadaafin lahaa dalka waxa weeyaan qof walbana waa ku waajib waxaan leenahay qof walba oo muwaadin oo gurigaaga iyo inta kugu dhow banee waxa weeyaan dawladaha hoosana waa shaqadoodii way ku hawlan yihiin uga shaqayn lahaayeen dawladda dhexena way caawinaysaa madaxweynaha soo saaray amar madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay madashaasi ayaa sheegay in maanta ay tahay maalinta ololaha nadaafadda qaranka Soomaaliland loona baahan yahay shacabka Soomaaliland in laga wada qayb qaato ololahaasi nadaafadeed maanta waxa weeye maalinta nadaafadda weeye waxaynu ku tashanay qaran ahaan inaynu maanta u qoodayno maalinta nadaafadda aynu kulliga ka wada qayb galno sidii dalkan iyo dadkan uu nadaafadiisa aynu kor u qaadi lahayn magaalooyinkeena iyo wadooyinkeena iyo magaalooyinkeena waaweyn oo dhan ololaha nadaafaduna waa mid al-nadaafatu min al-iimaan aad iyo aad bay muhiim ugu tahay saxada dadka nadaafadda iyo quruxda magaalooyinkeena wax weyn bay ugu fadhidaa inaynu dad ahaan dawlad ahaan iyo shacab ahaan iska kaashadno inaynu nadaafadda aad iyo aad kor ugu qaadano taas oo aan ka socon gobolkan qudhaha ka socota dalka oo dhan oo idil ka socota insha Allah ta'ala ilaa waxaan ka baryaynaa inuu guuleeyo taana mar walba meel ugu soo warjeesano meelaha kale oo madaxweynuhu tagay waxa kamid ah degmada Maxamuud Haybe halkaasoo si habsamiya ay uga socotay hawlaha nadaafadeed ee qashin ururintu mudane Maxamed Muuse Abeys wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay sida ay hawshu u socoto ee muwaadiniintu ay uga qayb qaadanayaan ololahaasi nadaafadeed waa staafkii madaxtooyada inta ka shaqeynay iyo xiriirkii golayaasha ayaa inta aan ka shaqeynay ilaa saakan halkan aan joognay kormeerka shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliland oo ahaa mid muddo qaatay ayaa waxa kale uu tagay degmada Gacan Libaax oo shacabka jiidaasi ku dhaqan ay si wanaagsan oo wadaniyada ku dhahan tahay ay u wadeen ururinta qashinka maayirka hoggaanka caasimada Hargeysa ayaa madaxweynaha u sheegay in si wanaagsan ay hawlaha nadaafadeed u socdaan waxaan madaxweyne kugu mahadnaqaynaa amarkaaga oo shacabka Soomaaliland u arkeen annaga gaar ahaan Hargeysa madaxweynaha u damqanaya dhammaan gobolladii iyo dadkii oo dhan oo doonaya caafimaadkooda saxadooda iyo quruxdooda bilixdooda inay gaadho caalamka waftiga uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland oo ku guda jiray waajibaadkaasi shaqo ee qaran ee nadaafadeed ayaa u sii gudbay degmada 26 Juun halkaasoo iyadana si habsami ay uga socotay hawlaha qashin ururintu madaxweynaha Soomaaliland ayaa mar kale gacantiisa ula tagay inuu masharafada u qaato si uu uga qayb qaato qashin ururintaasi maayirka hoggaanka caasimada Hargeysa ayaa madaxweynaha uga mahad celiyay
maalintan uu asteeyay maalinta ololaha nadaafada qaranka Soomaaliland. Ololaha nadaafadeed ee dalka looga dareeray dadkuna ay si wadaniyad ku dheehan tahay ay uga qayb qaadanayeen ayaa waxa kale oo madaxweynaha Soomaaliland u tagay degmada Ibrahim Koodbuur waxaana markii uu soo gaadhay meeshaasi ka socotay ololahaasi nadaafadeed. dadweynaha ku hawlana ururinta qashinkaasi ayaa madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaadhay si wadaniyad ku dheehan tahay halkaasi ugu soo dhaweeyay. waxaana madaxweynaha Soomaaliland warbixin ka siiyay xildhibaan Xasan Shahar. waa Koodbuur ololihii aad ku baaqday mudane madaxweyne ayaanu ku jirnay maalintan waa maalin qaali nagu anaga agtayada waa maalin saboodno ah dawladda hoose waa maalin aanu ku faraxnay waa maalin aanu madaxweyne ka codsanay in loo kordhiyo waliba maalmaha mudane cali maxamed waran cadde wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo madax u ah gudida bilicda wadanka oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa yiri madaxweyne sidii aad awaamirta ku bixisay waxaan jeclahay halkeen uga mahadnaqno dadkeena reer Soomaaliland siday u ajiibeen rag iyo dumarba ee looga shaqeeyo meel kasto aynu soo maray dalka gabigiisaba nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam nadaafatu min al-iimaan madaxweyne sidaa ay codsadeen dawladaha hoose waxaynu ku dadaali doonaa inaynu joogtayno. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanye maaha markii ugu horeysay ee shacabka Soomaaliland uu kala qayb qaato ololaha nadaafadeed ee wadanka lagu nadiifinayo hase yeeshee waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee la yimaada fikradda in dalku yeesho maalin qaran oo nadaafadeed kuwaasoo shacabka Soomaaliland ay mahadiyeen maalintaasi isla markaana ay markasta oo maalintaasi ay timaado ay si wadaniyad ku dheehan tahay ay uga qayb qaataan. Axmed Saki Dairasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland caasimadda Hargeysa.